iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey social mediaha qaybihiisa kala duwan laga dheehanayay fanaanadii weyneyd ee taariikhda kala duwan ku lahayd fanka ee Maryan Mursal Ciise Bootaan oo sheegtay inay macasalaameysay fankii ayaa dareenno kala duwan waxa ay ka soo baxayeen bulshada qaybaheeda kala gedisan. haddaba fanaankii weynaa ee waqtiyada qaarkoodna ahaa saygeeda islamarkaasina ah labada wiil ee ay dhashay Maryan Mursal Ciise aabahood waa Axmed Cali Cigaal ayaa bartiisa uu ku leeyahay Facebook waxa uu ku soo qoray tan iyo markii aanu nasiibka u yeelannay inaannu ka mid noqonnay kooxdii ugu horreysay ee ku soo baxday barnaamijkii hirgelinta heesaha sannadadii 1967 walaal Maryan Mursal Ciise waxa ay door weyn ka soo qaadatay kaalingalkii fankii casriga ahaa ee berisamaadkii haddii ay ahaan lahayd suugaanta qaybaheeda kala duwan sida heesaha iyo riwaayadaha. muddadaasi oo ku siman 56 sannadood oo ay fanka ku jirtay sida uu sheegay Axmed Cali Cigaal walaal Maryan Mursal Ciise waxay fanka ku dhex joogtay ayuu yidhi milgo iyo sharaf midii ugu sarreysay ee uu qof fanaan ah yeesho. waxaan ilaahay uga baryayaa ayuu intaasi ku daray cimri barakaysan, caafimaad qab taam ah iyo cibaado suuban oo hadalka ku soo afmeeray.